waa munaasabada gunaanadka mashruuca safarka nabadda oo soo bilaabmay 27kii bishii Juun sanadkan lagu guda jiro iyadoo madasha furitaankana ka dhacday tuulada Goobweyn oo dhowr kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda kumeel gaarka ee Kismaayo. barnaamijkan oo ay fulinaysay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Jubbaland gacanna ka siinaysay hay'adda Somali Peace and Development Initiative SOPDI ayaa loo qabtay dhalinyarada degmada Kismaayo iyo kuwa tuulooyinka ku xeeran si ay isdhaxgal u sameeyaan. xafladda xiritaanka howlahan 3 bilood soo jiitamayay oo lagu qabtay hoolka Daawad ayaa waxa ka qayb galeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Jubbaland, agaasimaha guud, madaxda hay'adda SOPDI, hoggaanka da'yarta, maamulka xiriirka kubadda cagta Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale. Bashiir Ciise Nuux oo ku hadlayay afka hay'adda tartankan hidaha dhaqanka iyo ciyaaraha ama sportiska fududeysay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda laga lahaa isagoo sheegay inay sii wadi doonaan safarka nabadda. wuxuu ka dhacayaa Soomaaliya meelo badan, magaaladeena Kismaayo 3 bilood la soo dhaafay baan wadnay. wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood, dhaqan iyo sports baa lagu tartamay, laakiin wuu ka mug weyn yahay ulajeedada safarka nabadda. ulajeedada safarka nabadda laga lahaa waxa weeye isdhaxgal, isbarasho iyo in nabadda aan haysano aanu sii xoojeysino meeshaan u socono, safarkaan u socono oo ah barwaaqo, nabad, horumar, dawlad wanaag dhammaanteed inaan gaarno. markii ugu horeysay way ma noqonaysa, markii ugu dambeysay wayna soo noqon doontaa insha Allah. intaa waxa weeye iyadoo kooban. xogayaha xiriirka kubadda cagta Jubbaland Cabdiraxmaan Suufi iyo gudoomiyaha golaha dhalinyarada degmada Kismaayo Abaadir Beeshi ayaa labadooduba carabka ku adkeeyay sida ay ugu riyaaqeen ololaha safarka nabadda. waxa ayna tilmaameen in marka laga eego natiijada ay codsanayaan in la laba jibaaro oo xilliyo kale lagu soo celceliyo. maanta oo la soo gabagabeynayo barnaamijkii safarka nabadda, waxaana arintaas ku mahadsan xiriirkii hawsha waday iyo dhammaan bahdii la shaqeysay. annagana aan rajeynayno inuu noo noqon doono bidaamin iyo ifafaalo wanaagsan oo kubadda cagta u soo kordhay. waxaan codsanaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jubbaland in ay intaan nooga sii balaariyaan dhalinyarada intaan ay gaartayna ay hore u sii wadaan, dhalinyarada kale aan wali gaarin ay ayadana ku soo daraan hadii Ilaahay yiraahdo. gabagabadii agaasime Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo wasiir Cusmaan Xuseen Fayruz ayaa dhankooda bogaadiyay arrimahan sare loogu qaadayo nabadgelyada iyo horumarinta jiilka soo koraya. mashruucan waa muhiim, dhalinyarada Jubbaland dhana u hanqal taagaysa in deegaanada kale ee xortaana loo gudbiyaan ayadana waa codsanaynaa. waxaan salaamayaa howlwadeennada. waxaan leenahay hay'adda barnaamijkan suuragelisay ayadoo la shaqeynaysa wasaaradda dhalinyarada sportka aad bay ugu mahadsan yihiin. hawsha ay bilaabeen oo si toos aan u wada bilaawnayna insha Allah waxaan rajaynayaa inay sii socoto. dardaarankayga keli waxa waay dhalinyaro waxaad tihiin mustaqbalka dalkan. mustaqbalka dalkana waa inaad anoo ah reer hebel maskaxdaada inay ka gudo ka saar. qaar ka mid ah dhalinta oo aan wax ka weydiiyay waxa ay ka faa'iideen intii la bilaabay mashruuca safarka nabadda ayaa iiga waramay habka ay ula dhacsan yihiin.
يحيى عبد العزيز علي وحنا هجامينا حافظ فانولة والله أميد جوني نوله سفر كنبضة ما دام يصلح قلب الشيء أدبان عيالك وجهلنا في عناد السهر محمد tartanka dhaqanka walaa waan ku faraxsanahay ma sha Allah magacaygu waa Nimcaan Jaamac Aadan horta runtii barnaamijka safarka waa barnaamij aad iyo muhiimad u ah aniga xusuusi badan baa horta dib u galay laakiin hadii safarkan uu saan ku sii socdo waxaan filayaa in Soomaalidii way hore berisamaadkii ahaan jirtay inay ku soo laaban doonto safarka nabadda oo guud ahaan dalka ka soconaya ayaa ujeedkiisu yahay in la gaaro nabad waarta oo ay dhalinyaradu hormuud u yihiin kaalinta koowaad ee tartanka safarka nabadda qaybtiisa dhaqanka waxa gashay xaafadda Guulwade Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo